بسم الله الرحمن الرحيم aan sii wato marka intii hadda aan kuu sheegay oo waxaan ku tusinaa example aan ku siinaa sectionkii hore intaa kusoo dhegaysatay qofku waxaan ka dalbanaa haddaad qaybtan joogto soo dhegayso cashirka shanaad sectionkiisa 1ka inaad soo dhegaysato qaybta koowaad markaad soo fahantid ayaan qaybtan u imaan doonaa insha allahu tacaala qaybtan marka waxay ka hadlaysaa qaybtii hore waxaan uga soo hadlay marka variables iyo data types aan uga soo hadlay muhiimadoodan soo sheegnay waxa loo isticmaalaan soo sheegnay halka marka ina keen waxaan leeyahay marka ka soo qaadoo kaleeto hore aan u qori jirnay hash include input output string using name space standard intaas waxaan sheegnay inay tahay waa header files la isku dhahaa waxaas oo dhan main oo ah meesha madaxa uu ka kaco programka meesha program ka bilaabanayo madaxa waay main waa madaxa oo programka meesha ka bilaabanaya oo meesha compiler ka bilaabanaya oo waxa waaye waa systemka dhan meesha ka kacayo waay compilerka meesha fahmayo waay main hadduu ka waayo ma soconayo saas darteed qofka madaxa haddii la jaro ma soconayo haddii programkeena main laga waayo ma soconayo meelaan maamul lahayn ma soconayso qaacidada saasa ku hoos qarsan waxyaala waxaa jiro entailment cashir waxyaala la dhahaa jiro wax raacaa jiro ya iska fahan nolosha insha allahu tacaala qof kastoo la socyaa waa idin dhexgelgelina insha allahu tacaala si uga faa'idaystaan wax badan main marka aan data typeski qorto waxaan leeyahay integer x waxaan leeyahay integer waan qoray halkaas iga eke waxaan rabaa inaan soo koobo marka waxaan leeyahay markaan x eli waxaan hadda sheegay marka saddex shay iga rabtaa markaas halka marka qaacidadii aan kugu celiyay hadday waxaan ku dhahay waxaa la qorayaa marka la qorayo waxaa la qorayaa data marka variable kala dhigleelgelinaya waxaa la qorayaa data type data type waa qoraysaa marka koobaad marka labaad waxaa raacinaysaa variable nameka qoraysaa variable nameka inta qoraynaa equal aan raacinaynaa value inta qoraynaa values ama value hadduu value leeyahay hal value bas u qaadan karaa halkii variable intaa marka waa saasaa u raacaa fiiri waxaan ku yidhi siiqadaa raac mar kastaba injineerada software engineeringka ama markii sayniska laga hadlaayo ruulaa la raacaa ruulka hadduu kaa dhumo weligaa waa habaabe marka data baa qoraysaa data typeka variable nameka iyo valueha intaas le inoo sameeya bis marka maxaan leeyahay hadda inti x equal 10 waa qaatay hadda waxaan samaysanay variable loo yaqaano x qiimihiisu waa 10 data typekiisuna waa integer waxaan dhahaynaa sidoo kaleeto waxaan soo qaadanayaa float waxay noo dhahdaa y waxay noo dhahdaa tusaale kaleeto waxay leegtahay 2 alif point 34 waxay noo dhahdaa double waxaad ka soo qaadataa tusaale kaleeto float sorry variable nameka ka rabay z inoo dheh wuxuu leeyahay ka soo qaadoo kaleeto 13.12345 semicolon ayadana saddexdaas hal program ka dhigaa wixii string gooniya ka dhigaa saddexdan program bis saddexda variable aan soo daabacanaa markaas ayagaasaan gudsanaa marka see u qori karaa markaas okay allahumma salli ala muhammad aan rangareeya marka intaas inta markaan rangareyn rabo marka waxaan samaynayaa intaan si aan u rangareeyo intaan marka si aan u rangareeyo marka hadda dan ran dhaho wax ma soo bandhigayso waxaan dib ugu laabanaa marka maxaa wax lagu soo bandhigi jiray c++ waxaan ku bandhigaynaa cow markaan soo bandhigayno waxaan qoraynaa marka message waxaankaas waxaan leeyahay qiimaha x equal variable waxyaala calaamadaas ka baxo /t ayaan leeyahay /t markaan dhaho waxaan leeyahay meeshaan kalaan soo qaadanaya waxaan leeyahay qiimaha x wuxuu leeyahay x ما شرح دونا إن شاء الله تعالى عندي لنا أنت العسلام وفير مرك وحارب مس شاشة إنا يقصوا موقته شاشة وحارب إنا يقصوا موقته مرك أنا شرحه هالكن لين وحان لنا سي أوت معناها وإيصو بندي مسج كان سيدي سوق صباحا شلون صبرنا قيبتاس 10 كوران كصبرنا قيمها إكس equal
slash t maxaan ka wadaa slash t waxaan ka wadaa space waad baran doontaa tab aan laga wadaa computer qofka aad u isticmaali t hadduu tab hadaad dooratid space ii bax waaye marka tab aan ka wadaa marka waxaa soo bixi doona qiimaha x equal x ka halka aan dhigay wuxuu ku jiro waxaa geli doona qiimahana geli doona x kaas qiimaha 10 geli doona leano halkan hadda markaan saas kale u dhigo x uu noqon doona end line waa iga xir waaye marka dhowr qaab loo soo bandhigi karaa waxaan ku soo bandhigi karaa inaan dhaho see out si u kala duwan yihiin aan ku tusin doonaa waxaan dhihi karaa y end line haddaan saan qoro haddaa sidan oo kale u qortid ugu sharaxaad ma raacsana hadhow waxaa soo bixi doonta qiimaha y bisa soo bixi doono macnaha x y bisa soo bixi doonto laakiin haddaa rabtid inaad qurxiso dhahdo qiimaha y equal kida kida wuxuu la mid yahay waa inaad saan oo kale u qorto waan ku tusi doonaa waxaa kaloo iska qoran kartaa see out ii soo daabac hadda waxaan ku tusinayaa z end line hadhow marka qofka aad wax u soo bandhigaysid wuxuu ku fiican yahay inaad u soo bandhigto wixii inuu arko okay marka aan save garaysto waxaa ii dhahdaa tusaale cashirkan waxaa la dhahaa variables one oo ah numbers aan save garaynayaa okay programka def markaa isticmaalaysa c ka asaga ayaa caadi iska ah wuxuu ugu qabsaday halkan hore halkan marka waan ka reebayaa waxaan leeyahay waxaad ii saartaa ayaan leeyahay comment ayaan saaraa halkaas comment ayaan saa u saaraya halkan okay see out-ka waxaa iga dhiman t ayaa iyadana iga dhiman okay see out-yada kale way leeyihiin marka labada khalad ugu qabsaday data type halkan laguma declare garaynin error-ka hoos akhri data type markuu error-ka saaro waa inaad fahantid see out lama yaqaano halkan laguma declare garaynin scope-kan waa sax oo see out-ka t iga dhimanayd waa sax waa iyadana marka waa saxnay normally hadda waa inuu shaqeeyo okay shaashada soo baxday aan ku tusiyo shaashada soo baxday waa taa shaashada soo baxday waxaa soo baxday fiiri si u kala qurux badan yihiin fiiri qurux maxaa waaye qiimaha x waxay la mid tahay 10 markaan isticmaalay t iyo markaan isticmaalay halkan waxaa soo baxday 12 dhibic intaas 12 dhibic intaas waxay tahay maxaan ka ognahay 12 dhibic intaas soo baxday 12 dhibic yaa iskale ma waaya iskale ma zada iskale ma dhabala ma jaara maxay tahay ma ogin taas darteed si aan u qurxiyo ayaa waxaa ka qurux badan markaad wax soo bandhigaysid inaad war raaciso qiimaha x equal qiimaha z waa qiimaha y waa saas inaan u qornaa fiican marka aan ku laabto marka qaybteenii hore halkan lagu soo celi marka fiiri tusaale hadda kan kale waxaa fiican inaan raacino warkaas oo kale marka aad raacsan doon insha Allah taala labadaba tijaabi ama hadda rabtid warka inta iska soo koobtaba ayaa waxa dhihi kartaaba y equal /t bas waa isku dhamaataba kan calaamad rasaad u dhaxgelinay calaamadaas waa inaad u dhaxayso haddii u dhaxaynin ma qurux banaanaysa ya z/t calaamadaas waa inuu dhaxayso aad isaga fiiri meeshaas koorka waa dhib badan yahay marka qaarkood kale wax yar oo ka khaldamay ayaad ku wareeri kartaa intaan hadda rangaraysanaa marka fiiri waxbaan ka bedelay resultiga soo baxayna tusi si uu qurux badan yahay iyo si uu maxaa noqonayo dadku ugu fiican yahay taana noo soo baxay marka y equal intaas z waa intaas equal aan ka malinaya qiimaha z qiimaha y waa tana macnaha hadda y intaas leegtahay z intaas leegtahay okay waa war cad waaye aan ku tusiyo marka integer haddaan ka dhigo hal arrinaa marka ku tusinaa hal shay aan marka ku tusinaa fiir meeshaan dhib ka dhici karo waxa waaye haddii in case ay dhacdo fiir hadda meeshaas waxay noo soo baxayso mid kastaba qiimihiisa soo baxay iyo value-hiisa haddaan data type ka bedelo qof waxa laga yaabaa inuu ka dhigo halkan fiir integer aan ka dhigaa waa khalad dhici kara waaye integer aan ka dhignay halkan waxa dhan waa integer aan ka dhignay haddana tira jajabay wataan ugu yaa waxaan rabaa khalad ka dhici kara inaan ku tusiyo rabaa waxaan idhi sidan oo kale tan ka wada dhignay ranaan idhi programka inoo ran gareeyo fiiri marka aan ku tusiyo wixii soo baxay resultiga soo baxay fiiri wuxuu yidhi y waxay la eg tahay 12 zna waxay la eg tahay 13 waxaa laga tegey qiimayaal badan uu ka tegey
tira jajab haddaa rabti inaad isticmaashid saasaan waxaan ku yidhi inaad float ama double isticmaasho maahane haddaa saas u isticmaashid tiradii jajabkaada dhan wuu ka wada tagaa saas darteed iska hubi variableka datatypeka aad u samaynayso waxayse ku xidhan tahay waxaa rabti inaad samayso marka tan waan ka laabanaynaa dib inooga celi intaas saasay inoogu fiican tahay leanno haddii kale 34 waan weynaynaa 34 maxaa ka rabtaa 9 hadduu yahay xitaa waa weyne halka hadday 9 ka dambayso waa weyne xitaa ayada lafteeda xitaa marka si ayna saas u dhicin iska hubi insha allahu tacaala qaybta integerkana intaa ha ii joogto oo maxaan ku dhahaye integerka halkaas inaan badiyo cashirka ma rabo maalinba waxay inaan qaadanaan rabnaa marka insha allahu tacaala halkaa noo joogto integerka besa iyo doubleka iyo floatka intaa ku soo celceliya insha allahu tacaala